عليكم. magacii waxaa la Maxamed Daacad waxaan rabaa inaan idin wadaago barnaamijyo badan oo quseeyo caafimaadka iyo nadaafadda. waxaan bulshada Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan rabaa inaan gaarsiiyo caafimaadka iyo nadaafadda. marka channelka YouTube-ka magaciisa waxaa la channelkiisa Maxamed Daacad ayaa la dhahaa. haddii channelka cusub tahay subscribe saar, dadka walaaladaada la wadaag share dheh and like saar si aad maalin walba macluumaad u hesho oo ku saabsan caafimaadka. marka insha Allah waxaan rabaa inaan ila wadaago wixii caafimaad iyo caafimaadka quseeyo, maadaama qof walba oo adduunka qof walba caalamka joogo oo wax walba muhiimad ay tahay caafimaadka oo mid ka wada caafimaadka ay tahay iyo nadaafadda. marka fadlan waxaan rabaa inaan waxyaalahaas barnaamijyadaas inaan ila wadaago. marka insha Allah haddana waxaan rabaa inaan hal yar aan dhaxgalo maadaama xilli aan ku jirno xilli xanuune oo xanuun oo adduunka caalamka dhan qabsaday oo ku cusub yahay virus cusub waaye. magaciisa waxaa la dhahaa corona virus ayaa la dhahaa. qof walba hadda cashir ayuu ka bartay. marka cashirkaas aan ka baranay waxaan rabnaa inaan wax la geliyo waxyaalo badan inaan ka fahno. marka xanuunkan ilaahay ayaa keenay, haddana ilaahay ayaa qaadi doona insha Allah. marka maadaama hadda uu dhammaad u yahay oo xilligu hadda xanuunka uu sii dhammaanayo, marka waxaan rabnaa inuu ilaahay xanuunkan si u dhaqseeyo inuu ilaahay naga qaado. waxaana cudurkan looga hortagi karaa mar walbo nadaafadda oo loo hagaajiyo mar walbo oo aan ku dhaqanno nadaafadda oo maadaama dad islaam aan nahay. islaamkana waxaa la jira waxaa la iimaanka barkiisa islaamnimada waxaa la iimaanka barkiisa waxaa waaye nadaafadda waaye. marka cudurkan nadaafadda qofkii ku dadaalo cudurka ma taawanayo mana ku dhacayo. marka waxaan rabaa inaan ilaahay tala saarno aan nadaafadda iska hagaajino. nadaafooyinka oo la iska hagaajino waxaa ka mid ah in faraxalka la badiyo oo had iyo jeer maalintiiba 10 jeer ka badan faraxalka la dhaqo oo faraxalka gacmaha si fiican u meerto. waxaana gacmaha lagu meerayaa biyo oo dareertay, biyo nadiif oo socdaan iyo saabuun in oo gacmaha lagu dhaqo. waxaa la jira ayaa loo baahan yahay mar walba gacmaha saabuun inaad ku meerto si aad ugu hortagto cudurkan. mid labaad aad ugu hortagayso waxaa waaye social distance waxaa la dhahaa kala fogaanshaha bulshada. inaad dadka qof walba aad ka dheeraato hal tilaato markuu yar tahay iyo haddii kale iyo 2 tilaato kasii badan inaad qofka ka fogaato. waa qaab labaad looga hortagi karo. qaab saddexaad looga hortagi karo waxaa waaye in waxaa la jiray mask aad xirato marka bulshada dhexdeeda aad jirto inaad mask xirato. maskan waxaa la lahaa sangashiga afka iyo sanka lagu xirto ayaa la lahaa qaab labaad. marka insha Allah Soomaalida badan ay ka warhayaan caalamka qof walba ka warhaya. insha Allah waxyaalaha kale barnaamijyada kale aan rabo inaan idin wadaago waxyaalahaas amal ka mid ah. insha Allah isbuuc walba waxaan soo dhigi doonaa wax walba quseeyo caafimaadka iyo nadaafadda insha Allah haddii ilaahay idmo. marka waxaan rabaa mar walba si aad ula wadaagto barnaamijyadaas aad macluumaad ugu hesho. waxaa la rabaa inaad saarto subscribe share dheh and like saar si aad maxaa la jira mar walba macluumaadku soo dhacaan oo caafimaadka iyo nadaafadda quseeyaan. haddii rabtana walaalahaada la wadaag bulshada caalamka meel walba joogaan share dheh si ay kana macluumaadka nadaafadda iyo caafimaadka quseeyo si ay u helaan. marka insha Allah waa gaasatihiin soo dhawaada kanaalkan kor haddii aad subscribe saarto kor ka saar ama hoos ayaa ka arkaysaa subscribe saar gambaleelka riix si aad macluumaad mar walba aan soo dhigno barnaamijkan inaad ula wadaagto si aad mar walba akhbaarada u hesho. waad mahadsantihiin. waalaikum salaam waraxmatullaahi